بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha mudan nagala socda baraheena youtube-ka, tiktok-ga iyo facebook-ga ee Teacher Okash Online Academy. mar kale waxaad kusoo dhawaataan kooraskeenii ahaa New Concept English bogiisa koowaad ee First Things First Lesson 11 cashirkiisii 11aad. fadlan haddaadan hore soo daawan 10 cashir ee hore waxaan kuu soo dhignay qaybta description-ka haddii aad naga daawanaysid dhankiyo youtube-ka. waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka like noo saartid, aadna subscribe saartid beedkeena gambaleelkan aad furtid si mar walba kuu soo gaaraan muuqaaladeena. cashirkeena aan gudaha u galno. waxaa wada hadlaya man iyo woman. man, nin ayaa hadlaya, wuxuu leeyahay give me a book give me a book book please fadlan. give me a book book please fadlan Jeno. marka naaga meesha joogto wuxuu leeyahay woman, naagtii ayaa hadlaysa, waxay tiri which book, buugeeba. waxaan halkan ku fahmi karnaa asluubta markaad qof wax weydiinaysid inaad ku dartid macnaa isii waxaasi fadlan, waa qaab asluubaysan. woman waxay tiri which book, buugeeba. woman ayaa ama haweeneyda ayaa hadalka sii wadata, waxay leedahay this one, ma midkan ba. man ayaa hadlaya, ninkii wuxuu leeyahay no, maya, not that, ma ahan kaasi, the red one, waxaan rabaa midka casaanka ah ama midka gaduudan ayaan rabaa. woman waxay tiri this one, ma midkan ba. man wuxuu yiri yes, ha, waa isaga, please fadlan, waa isaga, please fadlan, ha isii, macnaa waa isagii. here you are, hoo qaado. here you are, hoo qaado. man wuxuu leeyahay thank you, waad mahadsan tahay. waxaan mar kale kaa codsanaynaa inaad beedkeena subscribe aad saartid, muuqaalkana aad like inoo saartid oo aad u sheergaraysid asxaabtaada si mar waliba ay uga faa'iidaystaan casharradeena kale. tan iyo intaan ka kulmi doona cashirkeesa xiga, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.